daljiro la dareen hadadkooda doorkooduna yahay dabargoynta arxanlaawayaasha ciidanka PSF ayaa yagleelay howlgallo dhidibada loogu aasayo amniga magaalada Boosaaso xilliga dambe ee habeenkii magaalada xudunta wax dhaqaalaha gobolada bari iyo bartame ee Soomaaliya ee Boosaaso ayaa waxa xilliyada dambe ka bilowda roondo ay sameeyaan ciidanka PSF kadib markii ay khalkhal galiyeen amniga iyo xasiloonida qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada kuwaas oo u socda koox iyagoo banida meheradaha ganacsi isu socodka wadooyinka qaarna khatar galiyay qorshaha ilaalintan ayaa ujeedkiisu yahay soo celinta habsami u socodka iyo deganaanshaha nabadgelyo ee magaalada iyo inay ka dhigaan mid ammaan ah mar kale waxa ku sidkan howlgalkan raadinta raadraaca tuhumanayaasha Daacish ee u hanjaba ganacsatada deegaanka muddooyinkii u dambeeyay waxa magaalada Boosaaso ka dhacay dhibaatooyin ay ku hayaan dhalinyaradu waxayna farabaan ku hayaan khatarna ay ku yihiin xasiloonida waxaana fudud in arxanlaawayaashu ay ku dhuntaan dhexdooda taasi oo walaac gelisay badi bulshada gobolka bari PSF waxa ay go'aansatay inay gudaha u gasho iyadoo oo kaashanaysa khibradda ay u leedahay kooxaha noocan u abaabulan iyo gudoomiyaasha xaafadaha magaalada waxayna dadaal u galeen ilaalinta ammaanka magaalada ciidanka PSF waxay sidoo kale diiradda saaraan sidii ay u heli lahaayeen xubnaha Daacish ee cabsi galiya milkiilayaasha ganacsi hanjabaadahaas ayaa bulshada ganacsatada ka dhigay kuwo ku nool cabsi taas oo saameysay dhaqaalaha deegaanka iyo guud ahaan ammaanka ciidanka PSF ayaa qabtay 3 qof oo looga shakisan yahay kulug lahaanshaha hanjabaadahaas waxayna mari doonaan baaris looga gungaarayo inay ku lug leeyihiin falalkaas walina waxay baadigoob ugu jiraan shakhsiyaad kale oo ka tirsan Daacish kuwaas oo hanjabaado farabaan ku haya milkiilayaasha ganacsi ee ku dhaqan magaalada Boosaaso haddaba muwaadin xogta dhibanaha mar walba PSF way dhowraysaa adiguna soo gudbi wixii khatar ku ah amniga adiga oo wacaya nambarka gaaban ee 266 si ay u fududaato in hawlaha noocan looga hortago mustaqbalka dhow